asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan aqayaartiitu waan salaamay cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaan virtual boxy aan ugu samayn lahayn zoom sida aan ugu dhigi lahayn kombiyuutarkeena dham inuu leegyahay. Hadda waxaa ujeedaa shaashada inay aad u yar tahay, waxaad ujeedaa windowgan inuu window xp yahay. waxaan u sameynayaa sida window 7ka oo kale ayaan shaashada ugu weyneynaa. marka artina ku weynaysid view ayaa leedahay, kadib waxaa leedahay switch to view screen ayaa leedahay. wuxuu ku noqonayaa sidaan, laakiin maxaa lagaga baahan yahay kadib markaan kasoo noqdo haddii installation ay kugu shubneen waxa la dhaho installation guest addition, shaashada wuxuu ku noqonayaa mid aad u yar. marka sidaa ugu shubtid waxaad sameynaysaa device, kadibna waxaa leedahay install guest addition ayaa leedahay. kadibna wuxuu sameynayaa inuu installation ku sameeyo, next ayaa leedahay, kadibna next ayaa leedahay, install ayaa leedahay. kadib wuxuu kusoo qorayaa inuu ku dhaho fail sida cod ama networking oo kale inuu lasoo qabsado ku dhaho ma sii wada uu kusoo saarayaa marka wax yar sugtid. marka waxaad ujeedaa inuu kusoo qoray softiga, wuxuu soo qabsaday qaybtii kalarka ayuu soo qabsaday. anyway continue anyway ayaa leedahay, wax yar hadda sugaysa, haddana wax kaloo kaa codsan isla markiiba. kadibna wuxuu soo qabsaday magi iyo codkii waxyaabahaas soo qabsaday. continue anyway ku dhufo, kadib wax yar ayaa sugaysaa. isla markii uu howsha ku dhameeyaba waxaa leedahay reboot now yes ayaa leedahay, haddana restart ayuu isku sameynaya. marka waad ujeedaa window 7kii codkiisa inaad maqlaysaan ande window xp ande waxaad ujeedaa markii uu boot soo sameeyo waxaad awoodaa inaad hadhow shaashada ka dhigtid mid aad u weyn, sababtoo ah haddii installation kasi kugu jirin shaashada wax isbedelaysa ma lahan. haddii aad weynaysid xitaa intaan ayuu ku ekaanayaa oo madow gudaha ayuu ekaanayaa. marka installation kasi ku shub, kadibna waxaad arkaysaa inaad ka dhigtid view ayaa tagaysaa, kadibna waxaa leedahay switch to full screen ayaa leedahay, kadibna sidaas ayuu ku noqonayaa. marka insha allah biidnillahi kariim waxaan u malaynayaa inaad aad u fahanteen, aana ka faa'iideysan doontaan insha allah biidnillahi kariim. kolley hadda marka desktopka wax yar sug aad arki doontid inuu dib usoo laabto. markaad ujeedaa in codkii oo marka desktopka imaanayo oo aad maqasheen, kadibna window xp welcomekiisa markii oo imaado ayuu codka shidayaa. markaas waxaa leedahay view ayaa leedahay, view sidaas ayuu shaashada kugu weyneynayaa. hadda saan waa ujeedaa inuu aad u weyneyn, laakiin markuu windowga oo lagu shubo sidaas ayuu noqonayaa. view switch move ayaa leedahay, waxyaraan sugno. shaashadii waa ujeedaa inuu ku weynaaday. markii windowga soo kaca hadda sidaan ayuu ku noqon. hadda waxaad u maraysaa window xp caadina isticmaalaysid, sababtoo inta hadda fiirsid window kale ayaa ku jira. marka version boxa maxaa loo isticmaalaa inaas lagu barto windowyada si loogu shubo linux oo kale, ubuntu, ayu barnaamijyo loo isticmaalo in kombiyuutar lagu shubo kale waa ku baran kartaa. kan wuxuu ku fiican yahay marka artina iska right kill ayaa leedahay, waxaa leedahay inaad kombiyuutarka dham ka tir ayaan rabaa ayaa leedahay, sababtoo waad daminaysaa. markaad damisid wuxuu kusoo baxay inta right kill ayaa ku leedahay, remove ayaa kusoo baxayso asiga dham mujeedid, remove disable waay ilan asiga kacsan. delete haddaad dhahdid all of them wuu ka tiraa, laakiin windowga kan delete ma yeelayo ilaa formatin lasoo sameeyo. marka insha allah biidnillahi kariim waxaan malaynayaa ka faa'iideysan doontaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh, wajazaakum allah.